بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال ومركل يا برنامج كين وحبرشدا واد كلا سعودان شاشة مقبية عالمية بدعس 24 تي في داود يال برنامج واحد لسعود سيني أنا وناصر عبد القادر عبد الوهاب ناصر تلسمي داود يال برنامج وبرنامج وحبرشدا داود يال برنامج وحنا سوق هذا إنسان قدر درجلنا دتك وحبرشدا قيمة هاي لاد هاي داود يال وحبرشدا وأساس كوباد وقف كل سنة كله هيك يسمى مستقبل نمو داود يال ما أنت واحد يقول سجون استوديو تلفزيون كعالمية بدعس 24 تي في مبارك محمود عبد الله قاني مبارك كسر دو برنامج وحبرشدة تلفزيون عالمي بدع 24 تي في أدبان روحي ناصر إن وهرين بالواحد وربحين نجستي تاريخ نولات كاجي بسم الله مقعي ومبارك عبد الرحمن محمود مبارك قاني كل وحبرشدة إذا هوسة لحى أساسي جنتو بدو حن كسقاتي مقالة برعة حرنت قبل كتقدر جامعة دي تكريجي نوحن كبحي جامعة هرقيسة markii 2016 aan isla maantaadana waxaan wadaa masterate banka wada jaamacadda new generation aan kulligeedii waxbarashada inaha soo haawilna waa ku jiraan waliba ku jirta waxa tahay dad muxuu ay waxbarashada in badan ku soo jiray bal markaa waxa warbixin kooban naga sii waxbarashadu qiimaha ay leedahay horta marka la topican la barnaamijkan waxbarasho waa balaaran yahay wax lagu soo koobi karo maaha muddo yaro gaaban oo daqiiqado xillamada sax aqoon hadaan si uguud maro laba dhinac weyn ka eegi karnaa sax aragtida islaamiga markan ka eegno aqoonta waxa ugu weyn qofku inuu barto macrifada ilaahay allah abuurtay khaliq abuurtay inuu barto wixii uu ka reebayana oo ka reebtoonaado wixii uu farayana uu farnaado uu yeelo iyo nolosha oo dhan oo aan dhinacnaba uga baxaynin sax aragtida labaad waxay oranaysaa waa waxa nolosha qofku sidoo u dhaqmayo sidoo u baran lahaa dadka soo la dhaqmayo allahumma salli ala muhammad sidoo behaviorki waxaan afka qalaad ku nahnaa bulshada allah wixii saxnaa iyo wixii khaldana oo wanaaga weegiya sagaan weegin diiniyan wixii wanaagsana iyo wixii xumaa inuu kala saaro qofkii inay noqoto qof ka dhex muuqda barashadu qofku taa baranaya la markaa wax barasho waxay kala duwan markaa waa maxay waa xagga aragtida islaamiga markan ka eegno kaliya kala duwanay wax maxay waa macrifada allah inta kale oo dhan waxay noqonayaan qofkii waa qofka inay barashadu baranayay noloshii oo dhan asaasigeedii soo la dhaqmi lahaa dadkii bulshadii la noolaa soo la dhaqmi xataa familigiisa soo la dhaqmi lahaa oo baranayo sidoo u baran lahaa wixii saxa iyo wixii khalada sidoo u baran lahaa deegaanka uu ku nool yahay lafteeda oo aynan oran markaa tusaale ahaan qofka wax barashada waxa la oran karaa qofku waa inuu masterate degrees diploma waxa soo qaata waa sumado waa run loo sameeyay laakiin yar haddaynu eegno waxbarashada inanka ariga la jooga ee barta meesigiisa soo uga soo dhalaalo dayaca uga bilaaba yuusan wax baran waa tacliin ka geela la jooga ee bartay geelisaas loo liso sida marka xanuunsaneed loo daweeyo sida marka shilinta looga guro sida dhulka marka abaarsado dhulka deegaanta loogu raro waa tacliin oo bartay in yar waxaan ku cadeynaynaa taa ninkii maxamed kaan fadho looran jiray baa mar uu cadan tagay oo ka calaacalayay waxbarasho laanta marka meesha uu tagay aan waxba ka garanayn buu xoranayay tudciya ay kamid ahaayeen تعليم وحي بريا بهاي تيسو قدم تيسكو أودية بان قنترادو حولا هلكا وحي استعمالي مركا محي إريقا تعليم سادرادي براشدي إن حولا لليسو إن لأوضو إن شلينت لغا قرو إن لداويو إن لحنانية لما محي نغنسا والتعليم قفك مركا نوشا لنعو كتشوغو براشدو برانا يالونا يا محي محي تعليم ساسا نغنسا سواش اللبان intee leeg baa la oran karaa ku soo jirtay saaxadda macallimada ama baraha waxaan ku soo jiray muddo imika 10 sano waxaan bilaabay sanadkii 2009kii baan soo bilaabay muddadaas iyo ilaa xataa الآن oo 2019kii waxaan macallin adigu waxay noqonaysaa 10 sanadood intooda badan aan ahaa bara dugsi sare sax bal waxaad warbixin kooban naga siisaa adigu waxaad ka mid tahay dadkii wax ku soo bartay waxbarashada xilliyadii hore bal warbixintii waxbarashada xilliyadii hore warbixin naga sii أصورت أنا ناس رؤساوي فوقينا الله أنا أراك كريم وحنا هذاك كسي برتي وحبرشة مناهج تهوري لكن هذانا مالين بمالين تقدم بيسوي واحد مودا تبغى تاريخ ضوا شلي واحد دعاء ما أنت لقى شيء كيوم منهج كان محكوب برين إن كل وكدونا كان ما أنت سنة أظن مركز تو وحلاقي مدلة شو ولا بدلها ده لفتي أنا قرأت ده قابل صناركو وحكسي دعموي وحكسو كرده ما تشرو وحان حسوستا مركان wax dhiganayni ayado waxaan wax dhiganayna ku saleysnaayeen haday juqraafiga tahay beeyada aan ku noolahay xawayaanka ku nool dhirta laga helo xilliyada roobku da'o
oo wuxuuba ku salaysan maxay deegaankan dhulka Soomaalidu ay degto haba kala duwanaadaan ayaa la oranayay ayay ku salaysnaayeen dadka Soomaalidu say u dhaqmaan waxyaabo dhulkooda laga helo macdanaha dhulkeena laga helo laakiin waayadan dambe waxaa ku soo kordhay waxaan la dhigayo inuusan saameyn aanu waafaqsanayn geographical wadankeeni waxa dadkii ku noolaa deegaankii intiiba aad moodo inuu yar garab marsan yahay oo dal inooga sheekeeyo haddaan soo qaato Nayla Tugis iyo Dinga iyo dad Afrikaan kaasa la inooga sheekeeyo dhirta ama cawska haddaan soo qaadano kale waxaan xasuustaa maadaama fakarka xanaanada xoolaha dhigan jiray waxaan dhigan jiray daaqa dhulka ka baxa daaqa wadanka ka baxa marna nologuma dhigin manana arag ayadoo leey waxaas ka baxa inta badan waxa la soo qaadanaya maxay waa caws iyo dalag ka baxa dhul aan la aqoon marka markasta waxaad mudaynayeen inaanu ku waafaqsanayn wixii wadankeena ku salaysnayn oo yar dhinac marka waaga wuxuu kaga duwanaa wuu yar matalay wuxuu matalay oo inta ma ku salaysnaa wadankii qofkana waxa muhiim ah ilmaha yar in maskaxdiisa baa loo dhiibay macalinka iyo wasaaradda waxbarashadaba maskaxdii hadii lagu aaminay inay barto yaa tahay adigu qofkan yar wax la barayo yaa tahay inuu aqoonsado asagu yaa tahay ee wadankaagu waa kee xageed ku nooshahay maxaa laga helaa wadankaaga maxaan laga helin dhir nooceeya laga helaa cimiladiisu waa sidee deegaankiisu waa sidee kadib markaas uu qofka noqonaya qof asagiisa aqoonsaday aqoontan wax u tarayso markaasi arintaasi yaa ka mas'uul oran kartaa horta waxyaabaha iska asaasiga ayaa ahayn in la yiraahdo hadii la hebel baa ka mas'uula ama hebel baa ka mas'uula dadkeen waxay u arkayaan waxa personal attack in qof shakhsi gaar ah loo joogo laakiin khasbiyan de wadankan mas'uuliyad buu leeyahay mas'uuliyadiisa cidda uu lamriga baa haysa cidaasina ciddu si igmatay waxa weeye wasaaradda waxbarashaduna markeen ay diyaarinayso manhajtan ayuunba ah manhajkan ay ka dhigto manhaj ku salaysan oo matala dalka iyo dadkaba ayay marka waxa dusha u saaran tahay oo alla ka weelay waa de wasaaradda isbarbardhig ku sameeyay marka waxbarashada xilliga hore waxbarashada maanta in badan baan akhriya ku sameeyaa daraasiya aan kulli aan xalaytadana u dambeysay aan dood ka lahayn oo ka wada hadlaynay barayaal kamid ah barayaasha dugsiyada dhiga wadanka macallin kasta wuxuu ku tusayaa siday u arko in meesha wax ka qaloocan haddaba sida wax lagu sixi kari lahaa ayuunba ilaa aniga cidda xogogaalka u ah ee waxaan ka warhaysaa waa qofka dhigaya haddii la samayn lahaa cid daba gasho oo u timaado waraysato macallin maxaad aragtay halkaa maxaa ku jira waxaa ka waran waxaa laga yaabaa inuu macallin kastaa soo gudbin lahaa ama bari kastaa wixii goldaloolay oo arkay wixii wanaag arkayna uu ku dhiirigelinaa sheegi lahaa marka cidda ugu dhuun daloosha waxa weeyaan barayaasha waanaanu inta badan iska weydiinaa su'aalo laakiin waxaan bay baahan tahay si loo gudbin lahayo iyo sidii loo fulin lahaa bal ka war waxbarashada haatan jirta imika lagu dhigay geeyga Soomaaliland alxamdulillah horta lama dhali wax walba inaan dhalilayna waxaas waa khariban yihiin dhalish waxa ma saxdo inta adigu wax dhaliilaysana waxa fiican inaad waxaad toosin karto tooso mar baynaan hayninba waagan bilaabayno kale de imika jiilalkan wax baranayo kale carruur yar baad ka dugsiga sare fadhiya dabad macallin dugsiga aan ahaa ilmo yar oo aan yaabayso yar baad arkaysaa dugsiga fadhiya jaamacadii waxa gudbiyay ilmo yar aan aad buu weyn waqti badan ka lumin oo ay ka dhacdo jaamacadda Hargeysa in la yiraahdo inay yar soo galo adeer makubad baa kaaga soo dhacday sababta wuxuu u qaadan waayay inay kadinka joogay kan baa jaamacad soo gudbay waagan wax dhiganayna dagaaliyo dhibaato laga soo baxay darteed nin weyn aniga leeg baa fadhiyay ayaa galaaska 6aad iyo 5aad fadhiisanay marka alxamdulillah heer wanaagsan baynu maraynaa oo waxbarashadii way taala laakiin kaliya waxaynu baahanahay sidee baynu harumar ugu sameyn karnaa wax ka bedel ugu sameyn karnaa si aynan meel u taagnaan oo meel ugu hayn tusaale ahaan maadada Soomaaligan dhigayin doora ba waxaad ku arkaysaa qaybta naxwaha kale qaybta halkaasi waxay joogtaa iyadoo halka maraysa baay ama qabyooday ama wali halkaas ay maraysa halkeedii laga ma qaadin yaa u maqan dadkii wax ka bedeli lahaa in la soo saaro la hawmariyo wixii lagu soo kordhinayo wixii laga saxayba la raaciyo Soomaha marka kaliya waxaan baahan tahay waynu haynaa wadadeedii aynu deeyar isqanshirino aynu ku darno faraska waxa uu loogu dhigtaa ka sii badiyo orodka waxbarashadu qiime intee leeg ay leedahay oo korta wallahi waxbarasho waxa garan kara qofka aan aqoon lagu adeegayo markuu arko bulshadii loogu adeegayo isaga iska waaya halku taagan qofkaas dareemi kara
tusaale yar waxaan soo qaadan karnaa gabyaaga aynu haddeer soo sheegnay maxamed kaahin feerdhole isagoo reer baadiya oo si fiican nolosha baadiyaha u yaqaana oo aan loogaga daba dhufan ayaa wuxuu tegayaa cadan markuu tegaya wuxuu arkayaa cadan in looga baahan yahay nin wax qora wax akhriya afafkan meesha lagaga hadlayayna yaqaana marka wuxuu dareemay inaanu ahayn isagu ta iyo midnaba ahayn meeshan noloshiisa aanay ka soconin qofkaas markaa dareemi kara markuu arko halku taagan aan aqoonti lahayn baa dareemi kara markaa qiimaha ay leedahay waxbarashadu bal waxaad warbixin kooban naga siiyay dugsiyada dawliga ah waxbarashadooda horta dugsi baan kusoo bartay anigu dawliga alxamdulilah waxay ku bixi jireen asana nimanka war haynin waaga waxaan lagu soo bari jiray luqadda Soomaaliga manhaj ku qoran jiray aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa hadda wali lagu soo dhigana waa alxamdulilah qofkaas luqadiibu si fiican uga soo dhismaya wuxuu noqonayaa qofta af Soomaaliya buu noqonayaa Soomaaliya af Soomaaliya oo aan nimadii iyo afkiisii buu garanaya Allahumma salli ala Muhammad laakiin waayadan dambe waxaad moodaa dugsiyadii dawliga ahaa inuu hoos u dhac ku yimid waxaan arkaa meelaha baraha bulshada ku arkaa qaar leeyahay dadweyne baa ka soo baxay dadkeena dhalishay way jecel yihiin kulliyo wax kasto xun way soo gudbiyaan waxa wanaagsan asaanay yariin inta soo qabata kuwa dadweyne ka dul baxeen kuwa deegaankoodii baab wadooxyo ka hor dilaaceen halka markaan isu geeyay waxa ay muuqatay inay gaabis badani uu ka muuqdo dugsiyadii dawliga ah ee ahaa meesha la dhiso ay ahayd ee ka horumaraan iyagu kuwan gaarka loo leeyahay private-ka oo gacan weyn la siiyaa bay ahayd ayaga markaa waxaad moodaa inay hoos maanta aanay kaalintoodii ay ka gaabiyeen waaga aanu dhiganaynay oo kale halkii marayeen inay aad uga hooseeyaan maanta ayaad moodaa maxaa sababaad oran kartaa hoos gaabiska dugsiyada dawliga ku imanaya waxaa sababaya dhowr arrimood tusaale ahaan waxaa sababaya macallinkii tayada lahaa wuxuu raadinaya dadkan waxay u wada xagaftamayaan waxa weeyaan qof waliba nolol maalmeedkiisa wuxuu kulli ka dhex arki waayay noloshiisii wuxuu ku dabaqi lahaayun dugsiyada dawliga adduunka waxaa la sameeyaa marka dee waa qofka ciyaartoyga oo adiga arkay dee saaxadaha ka soo muuqda caalamiga oo la soo iibsadaa marka ciddii ahayd qof macallinka fiican macallinka bulshada markaa ka dhex muuqda ciddii in ahayd u soo jiida waxay ahayd dee wasaaradda ay ku toojagarayso dugsiyada dawliga inuu wax ka dhigo kadib oo ardayda xataa hadduu meelo kale ka shaqeeyo waqtiyada qaarkood inuu dugsiyada dawliga uu ka bixiyo waxaa dhacda markaa macallimiin baa jirta wasaaradday ka gunaysan yihiin waxbay ka qaadanayaan mushaharkooda ka qaataan laakiin intuu shaqo tago dugsiyada gaarka loo leeyahay aado ayuu wuxuu sameynayaa khamiis ama arbaco tegaya waa weekendki waa maalmihii iska fasaxa wuxuu wax ugu dhigayaa si aanu ugu dhigaynin markaa kuwii gaarka loo lahaa aan wax ugu dhigin buu kuwan ugu dhigaya sababtoo ninkan nin baa le gaara baa le kan barefadka isagu wuu la xisaabtamaya asagaa doonayay ardaygii macallinkii baynu mid walba sharcigiisa kula xisaabtamo marka dabagal iyo dadkii meedii bulshada in lasoo urursado in la keenay dugsiyada dawliga ahaa ayaa ka muuqda meeshii iyo kadib waxay isugu horeen inuu dantiisa eeganaya inuu ku haro meeshii dugsigii anigu waxaan arkaa markaa dayaca ugu weyn ka muuqda waxa weeyaan inaanay priority-ga siinin wasaaradda waxbarashadu macallimiintii bulshada markaa ka dhex muuqday inay geysay dugsiyada gaarka dalalka imka caalamka marka la eego dugsiyada dawliga awood muxuu ahay dugsiyada gaarka loo leeyahay ka sareeya markaad geegan Soomaaliland eegto dugsiyadii private-ka baa sareeya kuwii dawliga baa sareeya adaan meel fog ba tegin markaad eegto wadamadan jaarkeena wax walba si wadankeena uga shaqeeyaan cakiskooda uga shaqeeyaan waxyaaba gaarka loo leeyahay baa hooseeya wadamadan jaarkeena waxa mar walba kaalinta koobaad ku jira waa adeegyada dawliga waxaa halka kaaga muuqanaya markaa inta cab badan la geliyo oo ka badan kan shakhsigu leeyahay waxa dawliga oo aad loo saaro service kasta ama adeeg kasta dawladdu bixiso inuu noqdo ka dhex muuqda bulshada oo ugu tayada wanaagsan waxa fiicnaan lahayd waxaa laga yaabaa xogaa qaarkood inaad aragto wadankeena dadka mas'uuliyiinta ay wadanka haya waa xaqiiqiyanba wadanka taladiisa dadka haya ama wax ka ahay qof kastaba ilmu leeyahay inta ay wadanka joogaan baan ka hadlaya midnaba lagama yaabo inuu ubadkiisu dhigto intaan ogahay dugsi dawliya
dugsi dawliya inuu dhigto lagama yaabo wuxuu dhigtaa kuwa dad bareefadada ay gaarka loo leeyahay haddaba sidee ku hagaagaysaa kii talada hayay ama wasaaraddanba xilka ka hayay ama uu talinayayba markuu inankiisi kala khashaafo ama inantiisi kala khashaafo dugsigan dawliga maanay noqonayn ruqadii ninka kale hidabada hayay isay ku xadaa way adagtay marka taasaa keenaysa inay hoos maraan ay ka maqaam hooseeyaan sida loogu talagalo ay waxyaa adeegyada gaarka ay soo baxaan dugsiyada dawliga kuwa breefadka bal ka waran haba aqoonoodkooda horta mar walba waan ammaanayaa lafteeda oo maaha mar walba inaad tiraa labadoodiiba isbarbardhiguma ka sameynanaa dugsiyada gaarka ay shaqo wanaagsan ba iyaba u hayaan ayay dee bulshadii u hayaan waa tartan waxbaan hagaajinaya adna wax hagaaji keenan dheereeyo un weeyaan waxay u hayaan wadanka dee shaqo abuur bay sameeyeen dad bay soo saareen waxay ku soo kordhiyeen magac iyo maamuus oo waxaa laga yaabaa intaasoo arday oo ka qalin jebisa ama ka baxda dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaga laftooda inay shaqo abuur kala sii sameeyaan bulshadii waxay u sameeyeen ayaga laftooda horumarkii bay ka qayb qaateen oo waa in loo baahan yahay oo sina loogama maarmi karo tartankaanay noloshu qiimo ku leedahay kii dawliga inagu waxay leenahay waxaynu ha hagaagaan kii dawliga inuu ka muuqdo saaxaddii kii gaarka loo lahaa inuu ka muuqdo saaxaddii qof walba nolosha dhinacaaga ka soo dhis ha noqoto markaa wax dee muctamaro adduunka meel ka galaan laakiin yay noqonuun wax dhinac ka rarnaada bulshada kala tegaysa markaasoo dabaqada noqonaysa marka aad bay ugu ammaanaya iyaga laftooda dee shaqaday u hayaan qaranka iyo bulshada bal ka waran imika dastuurka somalilan laguma dhigtay dugsiyada dawliga ee kuwa breefadkaba waana muxuu ahay dastuurkii dalku ku dhaqmayay bal sideed u aragtay haddii lagu dhigan lahaa wasaaradda waxbarasho kusoo diri lahayd horta wax kasta oo wadankan hadhowto kugu noqon kara caqabadaad u baahan tahay in noloshaada ka hor iman kara in lagu barto dugsiyada lagu daraa waa muhiim ama ha noqoto dastuurka iyo wax yaabo kale oo qofku noloshiisa kulli ku iman kara hadhowto caqabad ku noqon kara ay tahay inuu barto aan looga sheekaynin wax wanaagsan oo kasta waan soo dhaweyn lahaa in lagu daro oo lagu barto laakiin waxaaba taa ka horeeya waxaa heedadow ku jiraba maanta afkeenii hooyo ku dhigashadiisii dastuurkii iyo oo koleysan filayo marka waxbarashada heerka labaad oo kale jaamacadaha kale lagu dhigo waan jeclay lagu dhigto qaybaha qaarkood ha de qofka lagu soo barbaariyo waa muhiim oo asaga laftiisu waqtana sheegayo qofka in la baro yuu yahay maxaa qabanaya sharciga asaga qabanaya soo noqdo qof dhisan oo aan cidna ku khaldamin cidna ku gafin yaqaanana waxa uu ku waajibiyay de wadankiisu waan soo dhaweyn lahaa in la baro lagu daro dugsiyada sare oo kale lagu daro imika waxaa jira dhalinyaradu markay ka baxaan dugsiga sare ama galaaska fonfoorka waxay yidhaahdaan ardaydii hore jaamacadaha ka baxayba waxbarasho waxba way ku heli waayeen oo markaa shaqo way ku heli waayeen calashaan bal arrintaasi ka waran ardaydaasi ku dayan saartida kale totally waa fikir khaldan fikirkaas tusaalaan soo qaadanaya qofka bini aadanka waxbaa la baray waa lagu soo tabcay waqti baa la geliyey dhaqaalaa la geliyey fikir baa la geliyey maskax baa la geliyey lama odhan markaad waxaa soo dhammaysato intaad ama guriga kusoo laabo oo deeta waxaa tiraa cv nool baan u baahanahay cv nool waxaan uga jeedaa oday baan u baahanahay ama caaqil i kaxeeyo meeli geeya haydeeg amaba waxaan doonayaa inaan cid unu shaqeeyo lama odhan laakiin waxaa la doonaya qofku markuu intaas soo baray maxaan bartay waxaa maxaan soo kordhin karaa haddee maxaan samayn karaa shaqaabuur maxaan wax kaloo jiray oo horeba uga shaqaynaya horumar ku samayn karaa laakiin maaha keliya inuu soo laabto qofku yidhaahdo soo fadhiiso waxaan u baahanaya in lay tuqaantuqiyo weligaa ma dabada lagaa wadaya markaa tusaale ahaan weligii dadka waxaad arkaysaa shaqo kasoo waxaan lagu soo qalin jabiyey jaamacad buu kasoo qalin fulay waxayna u badanay inuu yidhaahdo wadankii shaqa ma taalo ama reer hebel baa lagu shaqaynaya sababtoo asigu wuxuu eegaya keliya waa wasaaradda dhowrka wasaarada meesha ku jira ayuu eegayaa inuu tago shaqo ka helo intee bay qaadi kartaa wadankeena oo dhan ma qaadaysaa haddaba dhowrka wasaaradood ma xarayn karaan maya waxa inaga maqan fikirka ah maxaan wadanka ka maqan maxaan kusoo kordhin karaa maxaan anigu wadankan kusoo biirin karaa maxaa jiray aan anigu u baahan horumaroo aan anigu horumarin karaa aragti caynkeeyaan kusoo kordhin karaa dhulkan ta ka maqan inaga maqan baa taas laakiin maaha inaad tidhaahdo shaqa ma jirto shaqa way jirtaa waynaanu carbisnayn waynaanu tababarnayn waynaan garanaynin sida loo abuuro
maxaad arkaysaa maalin walba intaasoo qof oo ajaaniba ayaa wadankeena inagu soo tahriibaalka nuga tahriibno kuurigii bay ka shaqeeyaan dadka Bangladesh iyo Yemen iyo cadaan miidhan noloshii dhinac kasta cuntadii ayaga galay maana ay lacag ka sameeyeen maanta marka waxa inaga maqan sidee baa loo wax shaqo loo abuuraa ee waxaan naqaanaa kaliya shaqo jirtay sidee baa loo shaqo tagaa ka fikirkaas waa fikir khaldan baan leeyahay waxaan ku boorinayaa qof kasta oo wax bartay meeshu doonaha ka baxee inuu san naftiisa ku tiirin shaqo uu meel ka sugo ama dawladdu ka sugo oo yiraahdo dawladdii baan shaqo ka sugaya ama NGO kale baa ka sugo oo isku dayo noloshiisa asagoo inuu wax abuuri karo imika waxaa jira dad maxay ilaahay ka qaaday araggii naafadoo kale hadday noqoto araggii dhagaha curyaan oo kale dadkaas imika iskuulaaday Soomaaliland tahay iskuulo badan ma hayaan oo ay wax ku bartaan haddii hayaana de waa dhowr iskuul baarintaasi ka waran bulshada aragga naafada ama baahida gaarka leh siyaabo badan bay ku dayacayeen kale dulkeena ki indhalaa kale way yar yihiin iskuulada aynu haynay wax ku barano wadanka waana qayb bulshadii kamid ah oo u baahan ayada laftooda waxbarasho ki curyaanka ahaa iska daa waxbarashadii bulshada tacaamulkeedii baan kugula soo fadhiisan karin halkaad fadhido oo dhulkii baa jaranjarooyin leh oo jaranjarada ma soo kori karaa asagu waxyaabo badan baad moodaa inaanay wadankeena ayagu aanay xuquuqba ku lahayn marka run ahaantii in badanna waa laga hadlaa dhowr jeer horena waan ka hadlay waxaan ku dhiirigelinayaa mar walba oo maantana sheegaya bulshadaas inay noqoto bulsho oo bulsho kamid ah bulshadeena in sidii tahay sida loola tacaamulayo bulshadeena kale aynu ayalo ula tacaamulo aynu badino iskuuladii iyo goobihii wax lagu barayay goobaha iyo dhulkii ay marayeen inuu fududeeyno siday u mari kareen bulshada wala mari lahaayeen ayagana waan ku celinayaa mar saddexaad iyo mar afraadba in bulshada ilgaar waliba lagu siiyo maadaama ay yihiin bulsho nugul dhawaan madaxweynaha wasaaradda waxbarashada iyo waxa uu khilaaf dhexmar wasaaradda waxbarashada iyo muxuu ahay iskuulada gaarka loo leeyahay waad heer madaxweyne gaadhay madaxweyne waa kii dul dhigay saddex qodob oo ahayd muxuu ahay sanad walba liis cashuureed wasaaradda waxbarashada ay isdiiwaan geliyaan bal ka war arrintaasi sidoo aragtaa horta labaan kala qaadaynaayo asoonan jeclaynaan siyaasi ahaan iyo aanan uga hadal haddana koley issue arrin yaalay meesha buu ahaa kaalin laxaadle baynu seen sheegnay bay ku lahaayeen dugsiyadan gaarka loo leeyahay wadanka ugana soo qayb qaateen ilaa dib u dhiskiisii iyo ilaa iyo maanta arrinkaa wuxuun baan leeyahay kolley waxaan ku dhaafaya waa habar dhali weydii aleela kuwaalad bay Soomaalidu tiraahdaa absolutely balka barnaamijku wuu soo gabagaboobayaa halka yaad ka salaami lahayd maanta aad fursad u heshay horta dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogto inta magacayga muuqayga garanaysa waan salaamayaa waxaan laba talo yar ku soo gabagabin lahaa barnaamijka maadaama aynu waxaan ka hadlaynaa waxbarashadii mid waxaan u dirayaa bahda waxbarashada ama cidda aqoonta u saaxiibka midna waxaan u dirayaa cidda ka mas'uulka ee wasaaradda tacliinta ku horeynaya waxaan leeyahay wadanka ama bulshadan dhammaanteed cidda loo wakiishay u idman waxa weeyaan waa idinka bulshadan waxaad u diyaarisaan manhaj haga oo qofkan dad ahaan diin ahaanba toosiyo oo matala hal isku dayo si loogu diyaarin lahaa ee aan loola kaashan lahayn wax meelo kale laga soo dareef kariyay bulshadana waxaan u sheegi lahaa qofku markuu wax barto waa inuu noqdo qof ay ka muuqato sidoo hadlayo sidoo u dhaqmayo sidoo bulshada la macaamilayo sidoo aaraadiisa u dhiibanayo sidoo u fikirayo sidoo wax u abuurayo waa inuu noqdo qof ka soocan qofkii aan wax baran qof ka soocan oo la garto asumad u ah qofkaasi waa qof ehlu cilmiya la yiraahdo baan ku baraarujinaya waxaan kale ku baraarujinaya inta badan aqoonta marka leeyaan loo qaadan waa aqoon maadiga waxa ugu horeeya lambar 1 aqoonta diiniga cidda baratay aqoonta maadigana waxaan leeyahay ayagana kulli wax anfacaya maaha kaligeed wax kaliya oo anfacaya kaligeed maaha waa inuu qofku noqdo qof
miisaaman labada dhinacba ka dhisan ugu dambeyn waxaan salaamayaa bulshada dhammaan iyo naasir oo ugu horeeyay wixii adiga iyo bahda muqbaayihayaan badacas 24 TV absolutely waan aad baan ka qaadanaa daawadayaasheeda qiimaha qadarinta xushmada karaamada naga mudaro intaasi waxaynu ku soo afmeernaa barnaamijkeena waxbarashada oo aad kala socoteen shaashada muqbaayiha caalamiga ee badacas 24 TV daawadayaal barnaamijka waxaad la socodsiinay anigu waa Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab taniya inta aan ku gudub doono barnaamijkan kan oo kala aniga macaankan ku soo marti qaadnay barnaamijka waxaad ku dhaafanaa sidaas iyo nabadgelyo